Carola iyo boyfriend-keeda waxa ay dalxiis 7 cisho ah ku joogeen waddanka Kenya kadibna waxa la gaaray waqtigii ay ku laaban lahaayeen waddanka Switzerland halkan ayay baskii uga degeen kadibna waxa ay soo koreen janjartan si ay u fiirsadaan baskii geyn lahaa magaalada Nairobi. Carola ayaa waxay si kadisa u arkaysaa labadan wiil ee Masaayda ah kadibna waxa ay la yaaban tahay qaabka ay u labisan yihiin ilaa ugu dambeyn uu soo eegay ninkan oo lagu magacaabo Lamin waxa uu la yaaban yahay qaabka ay gabadhu soo fiirinayso. Carola iyo saaxiibkeedu waa ay soo dhaqaaqeen waxayna soo galeen magaaladii ninkan ayay arkeen kadibna waxay ku yiraahdeen noo tilmaam meesha uu ka baxo basaska Nairobi laakiin durbadiiba waxa soo weeraray tuugo waa ayna soo carreen ilaa ay soo galeen suuqii. Carola oo ordaysa ayaa waxay ku dhacday labadii wiil ee Masaayda ahaa tuugadii ayaa kala cararaya kadibna Carola iyo saaxiibkeed ayaa aad u faraxsan waxayna ogaanayaan inay nimankani yihiin niman aad looga cabsado. Waxay ka codsanaysaa inay sawiro xasuus reeb ay la gasho waa ayna ka ogolaanayaan kadibna waxay imanayaan meeshii baska iyagoo ordaya laakiin baskii waa uu ka tegayaa mana jiri doono bas dambe oo ka baxaya halkan. Labadii wiil ayaa dib ugu soo laabanaya Masaayda ahaa kadibna waxay leeyihiin soo baxa. Carola waa ay soo raacaysaa laakiin saaxiibkeed ayaa diidaya laakiin waa ay soo khasbaysaa ugu dambeynna baskan ayay soo raacayaan waxayna kaga degayaan halkan hotelkan ayay keeneen laakiin durbadiiba security-ga hotelka ayaa diiday labada nin. Carola ayaa isku dayeysay inay kala hadasho ilaa markii dambe boyfriend-keeda uu soo jiido soo kaxayo oo yiraahdo maxaa nimankan ku dabageliyay waa aan raacayaa waana la soo caweynayaa ilaa laga gaarayo xilli dambe. Carola waxa ay raacaysaa labadii wiil ee Masaayda ahaa kadibna waxay imanayaan baarkan iyagoo khamri cabaya. Carola waxay aad uga heshay wiilkan isaguna waa uu ka helay laakiin markiiba waxa yimi Carola saaxiibkeed oo ka daba yimi ilaa uu hotelka dib ugu soo celiyay waxayna yimaadeen airport-kii waana maalintii ay laaban lahaayeen laakiin Carola maaha mid ku qanacsan isla markii waa isbedeshay. Carola waxayna ku tiri anigu ma tagayo iska tag keliga wuxuuna isku dayayaa inuu qanciyo laakiin way ka diidaysaa ilaa ay markii dambe kala dhaqaaqaan dib ayuu soo fiirinayaa saaxiibtii taas ayayna ku kala hareen. Carola waxa ay dib ugu soo laabatay baarkii laakiin waxay ugu tagtay laba nin oo qaba dharkii uu qabay Lamin waxayna u tilmaameen tuulada ay degan yihiin qabiilka Masaay. Ugu dambeyn Carola waxa ay timi meeshii loo tilmaamay waa ay soo kortay kadibna waxay heshay gabadhan waa ay sheekaysteen si fiican ayayna u wada qosleen. Ugu dambeyn waxaa la yimid deegaanka Masaayda daaqad ayay ka fiirinaysaa deegaankan iyo quruxdiisa iyo dadku sida u nool yihiin baska ayay ka degtay kadibna waxay soo dhex martay magaalada ilaa ay ugu dambeyn u timi gabadhan caddaanka ah. Gabadhii ayaa soo kaxaynaysaa waxayna soo gelinaysaa gurigeedii waa ay sheekaysanayaan gabadhan ayay wareysanaysaa waxayna ku tiri waxa ay qabaa nin ka soo jeeda qabiilka Masaay waxayna u sheegaysaa in meeshan ay ka jirto nolol aad u adag dumarkuna aysan ku lahayn sharaf waxaana talo kugu siin lahaa inaadan ninkaas raadin. Iyada iyo saaxiibteeda ayaa waxay yimaadeen suuqii waxayna wataan sawirkan si ay u baadigoobaan wiilkii Lamin ahaa waa ay soo waayiyaan kadibna waxa ay Carola ku soo laabanaysaa gurigii iyadoo hurda ayay hal mar waxa ay maqlaysaa cod kadibna albaabka ayay ka soo baxaysaa waxayna si kadisa u arkaysaa wiilkii Lamin ahaa oo ag taagan waa ay farxaysaa waa ay sheekaysanayaan. Carola waa ay ku faraxsan tahay nolosha halkan waxayna rabtaa inay nolol la bilowdo wiilkan Masaayda ah waxayna yimaadeen tuuladii ilaa ugu dambeyn uu u keenay hooyadiis. Carola waxa ay ka walwalsan tahay in la soo dhaweyn doono iyo in kale ugu dambeyn hooyadii waa ay aqbashay waxayna gudaha u soo galeen buushkii yaraa kadibna waxa ay baratay familkiisii oo dhan. Waxa la gaaray subaxnimadii Carolana waxa ay soo baadigoobtay saaxiibkeed Lamin laakiin waxay aragtay wax kadis ah kadib markay aragtay Lamin oo saaxiibadii la fadhiya dhiigana ka shaqaaya neefkan waa ay naxday kadibna waxay u laabatay jahadii ay ka timi guriga ayay timi waana iska seexatay aysan in yar kadib Lamin ayaa gurigii yimi kadibna waxa uu keenay familkiisii neefkii uu ka shaqaayay dhiigga si ay ugu quraacdaan. Carola tuuladii ayay ka soo baxday si ay u soo qubaysato kadibna waxay timi halkan waxay iska saartay dharkii laakiin saaxiibkeed Lamin ayaa u yimi wuxuuna ku yiri dharkaaga cisho waxa uu keenay meel cidla ah si ay kaligeed ugu dabaalato ilaa uu markii dambe si naxariis leh uu ugu soo dhawaaday timihiina uu markaasi uga dhaqay shaambo. subaxnimadii xigtay Carola waa ay soo dhaqaaqday waxa ayna timi halkan beertan ayay ugu timi ninkan caddaanka ah kadibna waxay weydiisay caawinaad laakiin wuxuu yiri ka joog halkan ha soo dhaafin waxa uu ku leeyahay kuma caawin karo. Lamin oo aad u yaaban ayaa ka soo dhaqaaqaysa meeshii ninkan ayaa u imaanaya waxa uu ku leeyahay waxaan ka socdaa dawladda sharci uma haysatid inaad halkan ku noolaatid fiisadina waa ay ka dhacday. Lamin ayay eegaysaa laakiin waxay arkaysaa inuusan waxba u qaban karin. Maalintii xigtay Carola iyo saaxiibkeed waxayna yimaadeen magaaladii si ay u soo cusboonaysiiso sharciga. Carola iyo saaxiibkeedu ay soo raaceen waxayna yimaadeen meeshii fiisayaasha laakiin isla markiiba security-ga ayaa celiyay ninkii dharkan ay wadatay lagama ogola meesha. Suuqan ayay yimaadeen waxayna u raadinaysaa dharkii uu gashan lahaa. Subaxnimadii ayaa la gaaray kadibna waxa uu soo dhaqaaqeen dhanka iyo magaalada aad ayuu u labisan yahay waana faraxsan yahay. Carola waxa ay gashay meeshan kadibna waxa ay la hadashay hooyadeed iyadoo ka codsatay inay u soo dirto lacag. Bangiga ayay tageen waa ay faraxday markii loo sheegay in hooyadeed lacag u soo dirtay
waa ay ka soo baxeen bangigii kadibna waxa ay u timi ninkan waxayna ka iibsatay gaari waxay yimaadeen dukaankan si ay ugu adeegtaan kadibna waxay arkeen dad badan oo tuulada ah oo raba inay laabtaan si free ayay ku soo qaaday lamin ayaa ku yiri waxaan rabaa inaan gaariga kaxeeyo Carola waa ay ka soo degtay gaarigii waxayna baraysaa saaxiibkeed sida gaariga loo wado waa uu faraxsan yahay in cabaar markii la socday waxa uu iska waayay bareegii waxa uu waayay gaariga bareegiisii kadibna waxa uu ku dhiftay gaarigii geedkan shil ayay galeen Carola waa ay ka soo degtay gaarigii iyadoo aad u caraysan wayna ku qaylisay saaxiibkeed kadibna waa uu xanaaqay lamin ilaa uu gaarigii isaga tagay ugu dambeyn lamin gaarigii waa ay kaxaysay waa ayna ka daba tagtay saaxiibkeed waa ayna raali gelisay kadibna waxa ay yimaadeen tuuladii meeshan cilada ayay fariisatay Carola saaxiibkeed lamin ayaa u yimi waxayna u sheegtay inay rabto inay ku laabato Switzerland si ay hooyadeed u soo booqato isaguna waa uu ka aqbalay Switzerland ayay timaaday Carola waxayna la kulantay hooyadeed waxay u sheegtay inay jeclaatay wiil Masai ah laakiin reerkooda dhan waa ay ka diidayaan Carola go'aan ayay qaadatay maadaama familkeedii ay ku diideen waxayna timi dukaankeedii hore oo ay ka soo tagtay waxayna u yeertay ninkan si uu uga iibsado dukaanka lacagta ayay soo qaadatay isla markiiba waxay aragtay saaxiibkeedii hore oo girlfriend cusub samaystay lamina howlihiisa iska wata ayay hal mar si kadisa ugu timi waa uu soo orday ilaa uu ku dhagay kuna yiri waan ku xiisay hadiyada ayay u keentay familkii dhamaantood waa ay faraxsan yihiin waxayna aad ugu mahadceliyeen inay u soo laabatay islaantana waa dhakhtarka tuulada ayaa ku tiri waxaad leedahay uur dhamaantood waa ay farxeen kadibna waxaa lagu heshiiyay in arooska la dedejiyo Carola aad ayay u faraxsan tahay waxayna soo xiratay dharkii arooska dadkii dhammaan tuulada joogay waa isugu yimaadeen waxaana la qalay neefkan dibiga ah lamin waa uu soo labistay waxa uu soo xirtay dharkii caada dhaqameedka u ahaa dhamaantoodna waa ay damaashadeen halkaana waxa ku soo dhamaaday arooskii Carola waxa ay soo raacday gabadhan kadibna waxa ay si kadisa u aragtay gabdhahan waxa ay weydiisay waxa meesha ka socda waxayna aragtay in gabadhan la gudayo waa ay naxday wayna carartay ilaa ay markii dambe ninkeedii u yeertay waxayna ku tiri dhaqankan muxuu yahay laakiin waa uu iskaga tagay waxa uu ku yiri waa caadada iyo dhaqanka aynu leenahay Carola waxa ay timi halkan waxayna u sheegtay saaxiibkeed inay doonayso inay dukaan furato waa uu ka diiday waxa uu ku yiri dumarka halkan jooga lama ogola inay dukaan furtaan dhaqanka iyo caadada noo talana maaha laakiin markii dambe waa uu ka aqbalay dukaankii ayay hagaajinaysaa waxayna u soo adeegtay dukaankii ilaa ay dukaankii ay ka dhigtay dukaanka ugu weyn ee ku yaala tuulada oo ay faraxsan tahay dadkii dhammaan tuulada joogay dhan ayaa yimid dukaankii wayna ka adeegteen Carola waxa ay dareemaysaa rafaad badan wax caawinada waa ay ka waday saaxiibkeed lamin iyo saaxiibadiina halkan ayay ku sheekaysanayaan si kadisa waxa albaabka uga soo galay lamin waxa uu ku yiri maxay tahay dukaanka iska furan ilaa uu markii dambe ku qayliyay oo ku yiri dukaankan ma nin ayaa kugu yimi waa ay naxday waa ayna ku qaylisay waa ay iska oyday ilmaha caloosha ku haysid xitaa shaki ayaa iga jiray in anigu dhalay habeennimadii ayuu u yimi waxa uu ku yiri iga raali ahow waa iska cafinaysaa ninkan ayaa u yimi waxa uu ku yiri waxa rabaa inaan alaab qaato laakiin waxay ku leedahay alaabtii hore ayaa lacagtoodii bixin leedahay kadibna waa uu ku qaylinayaa ilaa iyadoo arkaysa uu dukaan ka qaatay alaab kale kadibna uu ilbaab ka baxay Carola waxa uu imaanaysaa saaxiibkeed waxayna u sheegaysaa in ninkaas ay lacag badan ku leedahay saaxiibkeed lacag ma weydiin kartid adoo Switzerland ka yimi habeennimadii ayaa la gaaray waxa qabatay fooshi kadibna waxa uu timi dhakhtaradii magaalada waxaana degdeg loo saaray diyaaradda si loo geeyo magaalada isbitaalka ayaa la keenay Carola ugu dambeyn waa ay dhashay waxayna dhashay gabar qurux badan isbitaalka ayuu ugu yimi lamin isagoo hadiyad u wada kadibna waxa uu arkay ilmihiisii isagoo dhabta kaga jibsaday xaaskiisii tuuladii ayay dib ugu soo laabteen dadkii magaalada dhan ayaa isugu yimi ilaa ilmihii loo mariyay caada dhaqameed ay leeyihiin maalintii xigtay Carola waxa ay timi dukaankii kadibna waxay aragtay wax ay safileen dukaankii oo alaabtii dhan laga cunay lacagtii dukaanka taalay oo dhan oo la qaatay iyo lamin iyo saaxiibadiisa dukaankii wixii yaalay oo dhan dhameeyay waa ay ku qaylinaysaa lamin waxayna ku leedahay qayr mas'uul ayaa tahay wiilkan oo maqlay qaylada iyo lamin ku qaylinaysa ayaa mindi ku soo weeraraya laakiin durbadii waxa ka soo gaaraya lamin waxa uu qaracaya wiilkii subaxii ayaa la gaaray waxaana la isugu yimi geedkan waxaana la jaraya gartii xalay dhacday ilaa ugu dambeyn Carola loo xukumay in ay qaadato 5 neef oo ariya maadaama la isku dayay in la dilo xalay ariga ayay soo qaadanaysaa kadibna waxay arkaysaa saaxiibkeed lamin waa uu ku qaylinaya waxa uu ku leeyahay maxay tahay sababta qof kasta oo magaaladan jooga adiga uu ku rabo waa uu masayraya waa isaga soo tagaysaa dukaankeeda ayay imaanaysaa kadibna dukaanka ayuu irid ka soo galaya wuxuuna arkayaa ninkan la taagan mar labaad ayuu masayraya ilaa ugu dambeyn iyadii ku qayliyo ilmihiina uu ka qaato way soo ordaysaa waxay leedahay ilmaha ii dhig laakiin ilmihii ayuu ka qaadanayaa habeennimadii ayaa la gaaray Carola waxay timi dukaankeedii si ay customerka wax ugu iibiso laakiin hal mar ayaa waxa ku soo ordaya ninkeedii waa uu nacaya dadka hortooda ilaa ugu dambeyn uu dharbaxa indhaha uga geliyo waa ay ooyeysaa waxaan isku dayayaa inuu mindidan madaxa kaga dhufto laakiin wax ka qabanaya asxaabtiisii
odagana waxa uu ku leeyahay waa inaad isaga laabataa waddankaaga Switzerland. Carola waxa ay saaxiibkeed ku tiri waxaan rabaa inaan laabto oo aan tago Switzerland aniga iyo gabadheeda yar familkayga ayaa ii baahan waxaan rabaa inaan hooyaday soo tuso. Ugu dambeyn wuu aqbalayaa inay tagto waxayna u ballan qaadaysaa inay u soo laaban doonto. Carola waxay tagtay counterkii registrationka. Lamin ayaa soo ag istaagay kadibna wuxuu damcay inuu waraaqihii saxiixo laakiin waxa uu arkay waraaqo kale waa uuna weydiiyey waraaqahana waxay ahaayeen waraaqihii furniinka. kadibna waxa uu fiiriyey Carola ilaa isagoo meeshii taagan ay boorsooyinkeedii qaadatay waa uu soo dabagalay waa ay soo carartay Carola waxaana timi albaabkii baska laakiin go'aan ayuu qaatay waxaana uu u saxiixay waraaqdii furniinka waxa uuna ku yiri gabadheeda yarta ay ilaali. dawadayaal filimkeena maanta halkaas ayaan ku soo gabagabaynay waxaan idinka codsanayaa inaad channelka subscribe saartaan muuqaalkan aad like saartaan.